dalka meel kasta waxaa ku baahsan dhibaatooyinka ay horseedka ka yihiin mooryaantii hoostagaysay hogaamiye kooxeedyada haba ugu sii darnaato magaalada muqdisho oo saldhig u ahayd qabqablayaasha dagaalka badankooda xaafaduhu waxa ay u kala xirnaayeen hogaamiye kooxeedyadaasi oo awood ciidan iyo hubba haystay xitaa dawladdii ku meel gaarka ahayd ka awood badnaa dhibaatooyinkii dalka ka jiray sida dilalka dhaca iyo kufsiga waxaa markan xadka bax noqday afduubka oo aad u sii kordhay qof kasta oo loo arko in uu wax uun hanti ah haysto inta la afduubo oo jirdil iyo ciqaab adag loo geysto ayaa madax furashana laga qaadi jiray amni daridu waxa ay gaartay heer wax lagu cabiri karo aanu jirin maalmahaasi dhow waxaa bilowday in xaafadaha qaar ay dhistaan ciidamo madani ah si ay amnigoodii u sugaan dhalinyaro ka duwan qaab ahaan fakar ahaan iyo habmaamulka guud ayaa bilaabay in ay hubka qaataan waxay u badnaayeen dhalinyaro xalqooyinka wax ka baran jirtay iyo kuwii iskuulada dhiganayay 18 bishii February sanadkii 2006 waxaa Muqdisho lagu aasaasay isbahaysigii la magac baxay argagixisada dirirka iyo nabad ku soo celinta Muqdisho kaas oo ay ku mideysnaayeen dhammaan hogaamiye kooxeedyadii koonfurta ku amartaagleynayay isla maalintaas waxaa qarxay mid ka mid ah dagaaladii ugu xumaa ee Muqdisho ka dhaca kaas oo u dhaxeeyay maxaakiimta islaamiga iyo hogaamiye kooxeedyada isbahaysiga ku midoobay 9 ka mid ah hogaamiyaashii kooxaha dagaalka ee Muqdisho ayaa ku dhawaaqay in ay dhiseen isbahaysiga argagixisada dirirka iyo nabad ku soo celinta Muqdisho xarunta wasiirkii amniga qaranka ee degmada Daynile waxaa ku kulmay xubno ka tirsanaa wasiiradii xukuumadda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho joogay isla markaana ahaa hogaamiyaasha kooxihii hubaysnaa ee xilligaas waxay kala ahaayeen wasiirkii amniga qaranka Maxamed Qanyare Afrax wasiirkii gaashaandhigga Muuse Suudi Yalaxow wasiirkii dhaqan celinta maleeshiyaadka Bootaan Ciise Caalin wasiirkii awqaafta iyo arrimaha diinta Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish iyo xubno ka mid ahaa ganacsatadii gobolka Banaadir oo kala ahaa Bashiir Raaga Shiiraar Cabdirashiid Shire El Qayte iyo Ciise Cismaan Cali waxaa sidoo kale ka soo qayb galay gudoomiyihii xisbigii siyaasiga ee Somali National Party Cabdi Shukri Cali Xirsi iyo Cabdi Nuur Siyaad oo markaas ku cusbaa masraxa siyaasadda iyo hogaamiye kooxeednimada marka 9kaasi xubnood laga soo tago waxaa sidoo kale markii dambe gadaal kaga soo biiray Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Deere oo tirada isbahaysiga ka dhigay 11 xubnood halkii ay 9 xubnood oo kaliya ka ahaayeen kuwii aasaasay ee ku dhawaaqay isbahaysiga hogaamiyaashaasi ayaa ku heshiiyey in maleeshiyaadkoodii isdirirsanaa magaaladuna ay u kala qoqobnayd in ay meel ka soo wada jeestaan isla markaana dagaal lagu qaado shakhsiyaad ay ku tilmaameen in ay yihiin dad argagixiso ah oo mudan in dadka iyo dalka laga qabto dhisidda isbahaysiga iyo dagaalka maalintaasi qarxay waxa ay si muuqata isbedel ugu sameeyeen habkii nolosha siyaasadda dhaqaalaha fakarka iyo arrimaha bulshada 18 February 2006 waa barta ay iska bedeshay guud ahaan itijaahii Soomaalida wixii maalintaasi ka dambeeyay waxaa la galay marxalad ka bedelan tii hore loogu jiray hogaamiye kooxeedyadii ku midoobay isbahaysiga oo si kala gooni ah uga hadlay ujeedada loo aasaasay isbahaysiga argagixisada dirirka iyo nabad ku soo celinta Muqdisho ayaa sheegay in hadafku uu yahay in la ciribtiro wax ay xilligaasi ku sheegeen argagixiso dalka ku faafaysa qoraal ay saxaafadda u soo bandhigeen ayay ku sheegeen in ay doonayaan in laga sifeeyo magaalo madaxda iyo guud ahaan Soomaaliya oo dhan wax ay ku sheegeen kuwa biirqaatayaal ah oo taageera dambiilayaasha ajnabiga ah iyaga oo siinaya meel ay ku dhuumaaleystaan iyaga iyo waxyaabaha wax lagu qarxiyo sida war saxaafadeedka ku qornaa Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo xilligaasi ahaa wasiirkii awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa maalintaas 18 February warbaahinta u sheegay in ay jiraan rag wadaado isku sheegaya isla markaana dilaya dadka kale iyaga oo uu tilmaamay in waxaasu ay yihiin wax aad u foolxun oo diinta islaamkana lagu daboolayo foolxumooyinka ay raggaas ku dhaqmayaan waxaad ogtihiin idaacadihii Muqdisho hadii aad tihiin dad badan oo la dilay inaad tidiseen hadday yeeshee waxaydaan raacin marka aad tabinayseen ee dhadishi marka haddii aan iswarsanay waxaan isu sheegnay dilkaasu waa mid ka duwan dilalkii ama dagaaladii la arki jiray ee ka dhici jiray
muqdisho iyo guud ahaan waddanka Soomaaliya waxaan istisaalaynay arrintaasi inay tahay arrin ugub ah oo ku cusub dadka iyo dalka kana timid wadamo shisheeye. wasiirkii amniga qaranka Maxamed Qanyare Afrax oo isla maalintaasi shir jaraa'id u qabtay warbaahinta waxa uu sheegay in ujeedada isbahaysiga loo aasaasay ay tahay in laga hortago khatar argagixiso oo dalkan ku ballaaranaysa sidaas daraadeed waxa uu tilmaamay in tallaabada ay isbahaysiga ku aasaaseen ay tahay mas'uuliyad iyaga dusha ka saaran si waxaasi jira loo baabi'iyo. argagixisada ayaa qabta inaan la biyaamino la arag marka ra'yigaas asaga waxa iska la argagixisada waa cadda waxa lagu yiri dhulkay miina geliyaan waxa lagu yiri saraakiishii geliyay waxa lagu yiri aqoon-yahanadii duubay dilay waxa lagu sheegay calaamooyinkooda way afdu shakhsiyaadkana waa la yaqaan marka hor dhicina waa la soo sheegaa shakhsiyaadka naftooda argagixisada dagaal ay ku jirtaa Soomaaliya waxay rabtaa dawlad islaamiya aan ku soo rogaynaahay oo midda Iiraan iyo kuwa kale oo meelo kala joogo kala ay Taliban waana la yaqaanin ismoogaysi karana ma jiro idinka waxa idin ku cad journalistaadati iyo raadiyaasha iyo website-yada inaad ka cabsanaysiin maadaama idinku inaad ka cabsanaysiin aad ogtihiin inay jiraan waa ogtihiin oo been laga sheegay yaa geliya miinada yaa laaya dadka aqoonyahanka ay saraakiishi waxa jiro waa idinku ma sheega idinku sheega la idin ma arko hebel dilayra dadaan haybtooda la garanayna dila ayaa tiraayeen marka argagixisadu waa jirtaa nin ismoogaysi karana ma jiro waxay furteen maxkamado afkay duubteen dadkay dilaan xabsiyaalay suubsadeen dadkay tartuurayaan waa la yaqaan niman aqaanina ma jiro fikirkan annaga iskale laakiin fikirka iyagu ay haayaan fikir la keenay waaye oo sidii bariidka iyo baasada dibadda laga keenay oo kala kan annaga iskale waana noo jeedaa inay iscadeeyaan la rabaa yiraahdo argagixisa annagaana la yiraahdo Osama bin Laden waa iscadeeyay iyo al-Sawahiri inay iscadeeyaan la rabaa iyo Mus'ab al-Sakhrawi waa iscadeeyay raganima la rabaa inay iscadeeyaan la rabaa ay isu qarayaan argagixisada way yaqaan inay iscadeeyaan annagu way iscadeeyay wayna dawladna waxay saartay shaqada aan ma jirto damiirkeena iyo shacabka Soomaaliya rabitaankiisa oo la aamusiin ayaanu xil saaray waana qabanaynaa taana Sheekh Shariif Sheekh Ahmed gudoomiyihii xilligaasi ee maxkamadaha islaamiga isla markaana noqday madaxweynihii ku meel gaarka Soomaaliya intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2012 ayaa isaga oo isbahaysiga ugu yeeraya isbahaysiga sharta isbahaysiga shaydaaniga ashahaado la dirir iyo magacyo kale waxa uu sheegay in isbahaysiga loo aasaasay in dadka muslimiinta ah lagu dhibaateeyo adduunkana dhaqaale looga aruursado waxa soo baxday abaabul maxkamadaha ka soo horjeeda oo ay wataan nimankan lagu sheego hogaamiye kooxadyada oo soo baabi'iyay dalka muddo dheer u diidana inuu dego barnaamijkooda wuxuu ahaa markii ugu horreysay in ay warbixin diyaariyaan dad kale ay adeegsadaan una gudbiyaan cadowga ummadda Soomaaliyeed oo Itoobiya ugu horreysay Yuhuudda iyo Mareykanka intaba kadibna waxay ku qanciyeen in magaalada Muqdisho ay ka jirto waxa lagu magacaabo al-Qaacido taas oo ujeedadu ay ahayd in ay hanti fara badan ku soo qaataan arrimahaas markii ay sameeyeen kadib waxaa bilaabatay in la abaabulo oo maleeshooyin loo abaabulo ayaa bilaabatay waxayna soo qaadeen dagaalkii aad noqosheen 28 bishan 18 aan idhaahdo ay soo qaadeen laguna iclaamiyay isbahaysiga sharta isbahaysiga shaydaaniga ee la magac baxay isbahaysiga nabadda iyo la dagaalanka argagixisada Maxamed Qanyare Afrax isaga oo ka wakiil ahaa isbahaysiga intiisa kale ayaa uu ku dhawaaqay dagaal loo dhan yahay oo lagu qaado maxaakiimta islaamiga oo laakiin ay iyagu xilligaasi u aqoonsanaayeen argagixiso dalka ka jirta warba ma jiro waa la dirirayaa dagaal loo hortagaa barkay waxaan dagaal aynu yeelayaan ma jiro war waa diiday hadalka Maxamed Qanyare Afrax kadibna waxa qarxay dagaalkii uu isbahaysigu iclaamiyay si loo ciribtiro wixii ay markaasi ku sheegeen argagixiso dalka ku fidaysa dagaal adag ayaa ka dhex qarxay isbahaysiga argagixisa la dirirka oo ay ku midaysnaayeen hogaamiye kooxeedyadii Muqdisho ugu tunka weynaa iyo maxkamadihii islaamiga oo ay horboodayeen niman lagu tiranayay wadaadada diinta
gawaarida dagaalka oo ay saaran yihiin maleeshiyaadkii daacadda oo ahaa hogaamiye kooxeedyada ayaa weeraray kuliyadda jaalisiyaadka oo ay ku xaraysnaayeen maleeshiyo maxkamadda islaamiga ka tirsanaa. bilowgii dagaalka wuxuu ku bilowday in la soo weeraro kuliyadda jaalisiyaad ciidamada maxaakiimta ay leeyihiin oo joogay kadibna wuxuu ku soo dhamaaday in saf ballaaran 9 nin ay soo galaan ayaa ku xigtay loona adeegsado gawaarida tiknikada oo kala duwan bifadli illaahi waxamdi ilaahay fadligiisa iyo uma dadaalkii ay sameeyeen ragga dhallinyarada ah iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan inta ugu badan dadaalkii ay sameeyeen oo mataqaanaa loogu magac daray kacdoonka islaamiga ee magaalada Muqdisho ayaa jilibka u dhigay waana jabaan ilaahay waajibiyay. dagaalka ayaa sababay in hogaamiye kooxeedyadii isla weynaa xilligaasi ay waayaan taageeradii dadka. waxaa kala cararay oo dagaalka ka dhuuntay inta badan maleeshiyaadkii daacadda oo ahaa qabqablayaasha dagaalka. qaarkoodna waxa ayba ka soo jeesteen dhankii maxkamadaha islaamiga. halkan waxaan rabaa inaan ugu soo bandhigo dadka la soo qabtay qayb ka mid ah iyo qabaa'ilkoodii oo xaq ah oo ilaahay dartiisa aan ugu sheegayno oo aysan been ku jirin oo aad xaqiiqsan kartiin. ninka koobaad waxaa la yidhaha cabdiqaadir cali siciid waa habar gudur waa sacad. ninka labaad waxaa la yidhaha bashiir axmed daahir waa cayb waa nimo la yidhaha sabuux. ninka saddexaad waxaa la yidhaha maxamed cabdullaahi cabdulle waa dagoodi. ninka afraad waxaa la yidhaha xasan sheekh ibraahim waa xariim cawiintu ka tirsan yahay waa qabiil xuminta ka tirsan. ninka shanaad waa cabdiraxmaan cali waxa waaye guduble. ninka lixaad waa ismaaciil cali xagar waa xawaadle. shakiya ku jira ninkaan inuu xawaadle yahay inuu magaciisu magac beenayaa loo qaatay laakiin waxaa la sheegay nin dilaa ah oo muslim weyn ah inuu yahay. waxauna ahaa raggii ciidamada cabdiwaal. todoba waa faahim cabdullaahi maxamed asaguna waa habargidi waa cayn. ninka sideedaad xuseen saalax xasan asagana waxa waaye disko waa qabiilka xaweenta ka tirsan. 9 maxamed cabdi aadan waa mareexaan. okay ninka 10aad magaciisii weli si sax lama soo gaarin laakiin waa abgaal waa ciidamada muuse suudi ee ka tirsanaa waa daawud. marka intaas waxay ku tusinaysaa dagaalka qaabka uu dhacay iyo dadka ka soo qayb qaatay. hogaamiye kooxeedyadii ku heshiiyey in ay dagaalka meel uga soo wada jeestaan oo ay isu gurmadaan ayaa awoodi waayey in ay koox kale u gudubto cadaadiska dagaalka oo lagu adkeeyey darteed. dhammaan deegaanadii lagu dagaalamay waxaa si fudud ula wareegay oo ku itaal roonaaday maleeshiyaadkii maxkamadii islaamiga. waxaa ugu horreysay xaruntii isbahaysiga lagu aasaasay ee degmada Dayniile oo lagu qabsaday maalmo kooban gudahood. waxaa laga bixiyey meeshii ugu weynayd ay ka soo weerari jireen maxay ahaato xarashanaad ciidamada u deganaa cabdiwaal ayaa laga bixiyey 77. waxaana laga qabsaday hanti fara badan waxaana uga dhintay meeshaas dhimasho fara badan. waxaa la soo qabtay dad badan oo kala duwan oo kala nooc ah. dadkii marka la soo qabtay oo maxaabiista ahaa waxaa la isku dayay marka intaana maxaabiista u gudbin ka hor waxaa la isku dayay in loo fasiro arrin qabiil si loo ijhaadiyo ama loo dhiciseeyo hawshaas qiimiga badan ee ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan iyo dadka muslimiinta ah aad ay ugu faraxsan yihiin. dagaaladii u dhaxeeyay maxkamadihii islaamiga iyo isbahaysigii argagixisada dirirka waxa uu ku baahay deegaano badan oo Muqdisho ka tirsan. dagaalka ayaa maalinta ka dambaysa sii kululaanayay. waxyeelada dagaalka ka dhalanaysana waxa ay ahayd mid isa sii taraysay. hogaamiyaasha dhinacyadii dagaalka ku lugta lahaa ayaa warbaahinta si joogto ah u adeegsanayay. hogaamiyaashii maxkamadii islaamiga qaarkood ayaa warbaahinta mariyay fadwo ah in la qaadan karo hantida hogaamiye kooxeedyada isla markaana la guursan karo xaasaskooda dhiigoodana uu bannaan yahay in la daadiyo iyaga oo ku eedeynaya in hogaamiyaashaasu ay yihiin dad diinta ka iishay. ha yeeshee alxaaji muuse suude yalaxow oo ka jawaabayay arrintaasi ayaa shir jaraa'id isna u qabtay qaar ka mid ah saxafiyiintii ka howlgalaysay warbaahinta gudaha isla markaana aad u dhaliilay dhinacii uu warkaasi ka soo baxay. waxaan wax badan uga dibdhacayna nimankaan in ayaga la arko waxay yihiin waxay ku sugan yihiin shacbiga iyo ayaga inay sarkaan waxay war ka bilaabeen nimanku waa gaalo
islaamtu yaa wixii waa ka bari ma iga islaantayda furka islaantayda yaa iga islaam ya manin haya mataqaana muslim oo muslimadiisa la og yahay islaantayda waa marka uu leeyahay islaantu waa ka furan tahay haya mataqaana dhigiisana waa xalaal waxa waaye in alla inta la jirto waa gaalo haya mataqaana waxa waaye naawadu waa furan yihiin xoolahooda waa xalaal shariicada islaamka hadii la noqdo naagta in laga wato oo adoon laga dhigto oo la iska isticmaalo ayay ku tagi waxay ku tagay maalkaasi dadkaas oo dhadho bulshada magaga badan leh oo ku taageersan leeyihiin in la wada dhaco war meesha sayi'aadka nimankan ay afkooda ku sheegaan iyo mataqaana wax ma iga wax salala ma iga nima wax gartee umadiyadu la dagaalo waayeen nimanka waxa ogin waxba aan aqoon lahayn oo aqoontoodu liidata waayad ma u jawaabay aniga dadka qaar kamid u jawaabay inta cadaan u jawaabay waxaan u jawaabayn hay'ad mataqaana ninka la yiraahdo shariifkan u jawaabay waxaan u jawaabay wixii lamida hay'ad mataqaana dadka ka waaweyn ee raba dalkan inay mu'amaradan iyo balaayadan ay hay'ad mataqaana ku sameeyaan dalkan ay ka dhigaan dal fasaad al-ardiga la sheegayo dalkan ay ku hayaan oo ajaanibta iyo Soomaalida wax garad oo dadkaas inay naga baxaan hay'ad mataqaana gebigoodba ay noo wada danta in horta bulshadu ay aragto inta aqoonyahanka wanaagsan ay arkaan kuwa rajidka isku sheegayo oo hay'ad mataqaana anigu waxba sheegi ma inta wax garato oo dalkeeda wadaninimada ku jirto oo deegaanadoodu inay wanaagsanaadaan raba Soomaaliya intay ka koobanta niman isaaqo oo ugu yimid ku leedo oo waliba malaha ku leedo halkan ku leedo waxa ka soo jiro oo mataqaana waxa ku leedo orma ku leedo oo dad orma on waliba af Soomaaliga sheegay qaaran hatta muslim hayra ku jiro oo la iska adeegsanay Muuse Suudi waxa uu sheegay in sababta dagaalka uu u socday ay tahay in ay doonayaan in dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho laga qaado culays uu sheegay in uu ka soo wajahayay argagixiso ajaanib ah oo ka kala yimid wadamo shisheeye waxaan rabnaa Soonfayfka uu saaran yahay magaalada Muqdisho ay saaran tahay inay naga qaadanto rabshadaas oo dhan nimanka u sababta oo Soonfayfka haday gaaladi waayeen nimanka aqoonyahanka ku dhiriyay yadilo waa garaaf uu sii kacay nimanka wada waa nimankan la arkay roobiyay dadka dhowreyno waa aragteen dadka dilayaan waxa la sheegay ilmaana ka cabeen dad ilmaana ka cabo guriga iyaga lacaanaha baabaya waa dad ay madqana islaama baahida aysan waa u jeed waxa soo dhawaaq cunaan ku deegaankeena waay cid islaameed kuma duulin baydhawaan ku duulin badweynana ku duulin waxaan ku duulin hay'ad mataqaana Puntland yaan ku duulin waqooyi galbeedaan ku duulin ayagu kulligood waa wada yimideen macal waxa waa ajaanibta halkaan ay timid beledkeena waa ka sifaysay nimanka 16 sano ka badan mina sabaabulay waa niman ka yimid ilaa waxay ka yimideen dalalka antiriha ay ka yimideen waa dad isku wada xiran waa dadka hay'ad mataqaana Puntland galay kulligood waa ku jirjaa kuwan antiriha ay qaar kamid ah ku jira waa dadka galay hay'ad mataqaana meeshan maxay ahayd wuxuu nimanka galaw waa nimanka ebedkood dalkan argagaxis ku ahay ma yaan la iska sifaynin hay'ad mataqaana magaalada habaabiyaano ha noqoto meelan laguna soo hirgeli karin raadiyaasha qabo ma idinku la midkii dagaalkii u dhaxeeyay labada dhinac ee isbahaysiga iyo maxaakiimta ayaa sii kululaaday ayada oo af iyo adin aan waxba la isu reeban maalinba dhul hor leh ayaa dagaalku uu ku fidayay hubkii ugu badnaa ee Muqdisho lagu haystay waxa uu gacanta ugu jiray hogaamiye kooxeedyada hayeeshee markii dagaalku uu kululaaday ayaa hogaamiye kooxeedyadii mid hubkii looga tiriyay ayada oo ninkii isbahaysiga hooygiisii lagu aasaasayna Maxamed Khanyare Afrax uu u baxsaday dhanka Jowhar hooygiisana looga dhawaaqay maxkamad islaami ah sidoo kale Bootaan Ciise iyo Cabdi Nuur Siyaad ayaa magaalada isaga cararay halka Bashiir Raage iyo Muuse Suudina la sheegay in ay dooni ku baxsadeen ayadoo intii kale ee soo hartayna la waayay meel ay ka baxeen qaarkood ayaa si qarsoodi ah dalka uga baxsaday sidaas kuma joogsan dagaalkii u dhaxeeyay labada dhinac ee maxkamadaha islaamiga iyo isbahaysiga argagixisada dirirka wuxuuna dagaalka ku faafay deegaanada kale ee Banaadir ku dhow dagaalkii isbahaysiga iyo maxaakiimtu waxa uu gaaray ilaa magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayada oo laga daba tagay hogaamiyaashii Muqdisho ka cararay iyo Maxamed Dheere oo gobolka ka talinayay halkaas oo dabayshii isbedelku ay gaartay ilaa markii dambana gacanta lagu dhigay inta badan gobolada koonfurta
maalin arbaca ahayd 14 Juun 2006 dagaal qaraar oo la isu adeegsaday hub xoogan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dagaalka oo socday dhowr saacadood oo kaliya ayaa maleeshiyaadkii maxaakiimtu waxa ay magaalada ka soo galeen laba meelood oo kala ah garoonka diyaaradaha ee Jowhar iyo wadada isku xirta Jowhar iyo Balcad. markii uu dagaalku socday muddo hal saac oo kaliya waxa maxaakiimtu u suurto gashay in magaalada ay gacan ku haynteedii la wareegaan. waxaana ay keentay in ciidamadii Maxamed Dheere ay kala firxadaan oo qaarkood la sheegayba in ay u carareen dhinaca xeebta. meel kasta oo uu dagaalku ka dhaco waxaa si fudud ugu itaal roonaanayay maxkamadii islaamiga. sababtoo ah waxaa aad u jadbaysnaa oo xamaasadoodu ay sarreysay si weyn uga soo horjeeday qabqablayaashii koonfurta dadkii shacabka ahaa oo si hiil iyo hooba ah u garab istaagay maxkamadii islaamiga oo dhaqan islaamnimo lagu tuhmayay xilligaas. intooda badan hogaamiye kooxeedyadii ku midaysnaa isbahaysigii argagixisla dirirka waxa ay maciin bideen dawladdii ku meel gaarka ahayd ee ay iyagu uun hortaagnaayeen haba yaraatay in ay samayso wax dhaqaaq horumar ah, kuwaasi oo ugu dambeyntii iyaga oo xubno baarlamaan ah ay ku fariisteen kuraastii baarlamaanka ee Baydhabo, halka qaarkoodna laga sheegay in ay ku dhuumaalaysanayeen wadamo ka mid ah Afrika. waxaa intaasi dheerayd in dawladda Kenya ay dalkeedii ka musaafirisay qaar hogaamiyaashii kooxaha ka mid ahaa oo halkaasi u cararay. maleeshiyaadkii maxkamadii islaamiga oo taageero xoogan ka haystay dadkii shacabka ahaa ayaa si isxigxiga ula wareegay deegaano badan oo ka tirsan bartamaha iyo koonfurta dalka, marka laga reebo magaalooyin ay ka mid tahay Baydhabo oo fariisin maamul iyo ciidanba u ahayd dawladdii ku meel gaarka ahayd ee uu madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed. dabayshii isbeddelka ay maxkamaduhu horkacayeen waxa ay gaartay min bandiiradley oo mudug ah ilaa Kismaayo oo jubbada hoose ah. magaalo kastana waxa ay u sameeyeen maamullo ay wadaadadu horboodayaan, maleeshiyaadka beeluhuna ay ka dhex muuqdaan. inta badan beelaha Soomaaliyeed waxa ay samaysteen maxkamado islaami ahaa si ay duufaantii bidaysay uga mid noqdaan oo aysan hayaanka socdaahi sinaba uga harin. waxaa la gaaray waqti tuulo iyo xaafad kasta oo deegaanada bartamaha iyo koonfurta ka tirsan laga dhisay maxkamado islaami ah oo ay beeluhu leeyihiin. haddaba maxaakiimtii islaamigu sidee bay ku aasaasmeen markoodii hore? sanadkii 1993 ayay ahayd markii ugu horreysay ee Muqdisho laga maqlay magaca maxkamad islaami ah. xilligaasi Muqdisho kama jirin maamul rasmi ah oo lagu midaysan yahay. kaliya waxaa jiray maamullo aan nidaamsanayn oo kala qoqobnaa oo ay hogaaminayeen hogaamiye kooxeedyadii dalka ka jiray, kuwaas oo si dadban ugu heshiiyey in midba uu xaafad xirto kuna amar taagleeyo. maleeshiyooyinkii taabacsanaa qabqablayaashii dagaalka waxay isaga kala gudbi jireen degmooyinka Muqdisho iyo deegaanada kale ee koonfurta. burcadda wax dhacda ama tacaddi kala geysata sida dil, dhaawac, afduub iyo jirdil waxay awood u lahaayeen in ay ka baxsadaan meeshii ay wax ka geysteen, iyaga oo ku dhuumanaya xaafadaha aysan iman karin maleeshiyadii aagoodii xadgudubka lagu geystay. markii ay gaboodfalladu isa soo tareen oo dilalku ay magaalada ka noqdeen wax si joogto ah uga dhaca maalin iyo habeen kasta, afduubka, dhaca, kufsiga iyo xadgudubyada kale ee la geysanayayna ay tira beeleen, ayaa beelihii hubaysnaa qaarkood waxa ay bilaabeen in ay samaystaan maxkamado dadka ka shaqeeya ay hubaysan yihiin, isla markaana ka dhaqan iyo muuqaal duwan maleeshiyadii magaalada horey u joogtay. waxaa maxkamadahaasi ka dhex muuqday inta badan ururo diimeedyadii dalka ka jiray. wala horta urur gaara ma ahayn, laakiin dhinacaas ragga dacwada ka wada inta badan waxay ahayn ururka itixaadka iyo raggan itixaadka ahayeen oo iyaguna la dhihi jiray ragga Sheekh Maxamed Macalin ku abtirsanaya oo Shinuur Macalin ay kamid ahaayeen u dhawaay oo tawajuhaas ay suqbacad culimada suqbacad la dhihi jiray oo saameyn xoog badan ku lahayd maxaakamta. marka iyo rag islaaxay, laakiin ayagu dhinaca fanka iyo dhinaca aqoonta iyo dhinaca fikirka iyo ka saacidaayay oo aan ayagu toos dag qoryaha qaata ama gudoomiyaasha maxaakamta aan kamid ahayn. marka dhammaan dadka deegaanka degan oo dhan ururka rabana kamid ahaan islaamiga maxaakamta waa taageersanayeen. qof walba yani say rabto ugu dhex jirto, xayndaabka meesha rabto uga jirto. maxkamad kasta waxaa taageerayay oo hiil u ahaa ganacsatada, waxgaradka beesha samaysatay maxkamadaas iyo ururada ku fikirka ah. ujeedaduna waxay ahayd in la dhaqangeliyo xukun islaami ah, isla markaana la iska dhiciyo cid kasta oo hubaysan
oo deegaanka iyo dadkiisii ku xadgudubta maadaama xilligaasi aanu dalka ka jirin boolis iyo hay-ad maamul oo amniga qaabilsan wax kasta oo gef iyo foolxumo ah oo dhacana aanay jirin cid mas-uuliyaddeeda loo raacdo si ay wax uga qabato maleeshiyaadka ay maxkamadahaasu abaabuleen ayaa buuxinayay doorka ilaalinta nabadda iyo amniga maxaakiimta waxaa lagu aasaasay isku duubni iyo go-aan midaysan oo siyaasiyiinta oo calimahdii markaa ugu sarreeyey iyo odayaasha dhaqanka iyo duubabka oo imaamka ugu wen yahay iyo culummada saxwada iyo culummada duruqdaba mar walbana mashruucu hadduu yahay mashruuc dowladeed maxaakiimtu waa qayb ka mid a dowladdii waa wax wixii dowlad qaba jirtay qabanayaan wax kastoo dhinaca dowladda loogu dhaqaaqaayo sida haddaata aan sheegaynay waataan ku eedeynayna saxwooyinka inay ka gaabiyaan saxwada islaamigu inay ummadda inteeda kaleeto ay qiimeeyaan wax ku darsadaan wax kasta loogu dhaqaaqayo dowlad in la helo waa in mujtamaca qaybihiisa oo dhan ay ka qayb qaataan oo laga ilaaliyo koox inay si gaar u shaqayso laanna koox markay si gaar u shaqayso dowladnimadii loo socday aad baa looga fogaanaya burbur iyo dagaal iyo colaado iyo tamasuqa dhacaya marka maxaakiimtu bilowgii hore aad bay shaqo badan u qabteen shacleer nin geesiya waaye shaqo weyn buu qabtay runtii iyo ragga la shaqaynayay isku duubni waa jirtay sheekh maxamed macalin sheekh cali dheere sheekh shariif iyo rag kale oo wadaadada ka tirsan ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey oo maxkamadahaasi aasaasay muddo kadib waxaa istaagay shaqooyinkii ay maxkamadahaasu hayeen kadib markii ay ku fashilmeen ujeedooyinkii ay doonayeen in ay xaqiijiyaan laba sababooda u soo waxeed sababta koowaad waxay ahaaday horta waxaa isku dhacay culummadii waaweynaa oo golaha hirgelinta shareecada islaamka la dhihi jiray oo ugu sarreeyey oo sheekh shariif iyo madaxda ka ahaayeen iyo sheekh cali dheeri iyo guddiga fulinta oo madaxda ka ahay waxaana dhacday oo tuhunkaas uu ka yimid ragga sheekh cali dheere u badnaayo garbaha u ahay rag saxwaday u badnaayeen dhalinyarada saxwaday u badnaayeen iyo rag u dhadhow saxwada markii khilaafkaas wuxuu ka dhashay raggii saxwada waxaad moodaa inay u dhowaadeen sheekh cali dheere iyo raggii shaqaynaya iyagoo markaa guulaha sheekh cali dheere iyo geesinimadiisa iyo aada ugu tashiicinaya waxaa dhici karta inay xoogo mararka qaarkood xataa ay hadiyooyin iyo soo dhoweyn iyo magaciisii wax lamida inay samaynayaan xoogo culimmadii waaweyneed wax yaray ka dareemeen arrintaas ayagaana meesha ugu sarreeyay dabcan sheekh cali iyaga ka sarreeyey waxay dareemeen in culimmada duruqda xoogoo laga sii durgaayo oo sheekh cali dheere inkastoo isagoo laftiisa culimada duruqda kamid yahay laakiin xoogoo uu dhow yahay ragga saxwada waxaa arrintaas iyaduna sii kaabtay sheekh cali oo nin geesi oo jari ah laakiin ragga asaga ku hareereysan iyo ragga saxwada kasii dambeeyaba oo reer suubacad ugu daraayeen xoogoo lagu tuhmi jiray inay ahaayeen rag aad u sariic oo macnaa degdeg badan oo fudfudud oo markaa waxyaabihii loo baahnaa in dhowr sano kabacdi la qabto soo hormarinaya ay dhici karto inay ragga sida saxawaadkuba inta badan u badnaayeen ragga siyaasiyiinta oo taqliidiyiinta oo waaweyn oo saaxada siyaasadda ku jira inay u arkaan inay culays ku yihiin mashruucan inaysan guulahan wax ku lahayn ayagu mararka qaarkood sheekha waxaa la dhihi jiray inuu suqwaaca meesha la yidhaahdo galabtii jimcada wuxuu ka khudbay jiray 4 jirdiin meeshan la yidhaahdo oo ku taala degmada yaqshid iyo shibis iska saaran yihiin baabuur wataa dabcan baabuur technican oo ilaalinaysa baabuur langruusan oo wataa sanca ayuu baabuurka intuu degaa dusha lagu soo xambaari jiray taqriiban waa 2 kilomitir dhul ku dhow waaye marka intaas dusha iyadoo lagu sido oo wadada dhan ay buuxdo meeshii uu soo socdo loo soo sidana aad loo buuxo oo dad ugu yaraan 3 kun 4 kun 5 kun oo qofood ay fadhido ayuu sheekha inta la keenay dusha lagu wada kursi iyo miis u yaala inta la fariisiyo oo mikrofoonka loo dhiibo khudbay jiray marka mararka qaarkood waxaa dhici karta inuu yiraahdo kitaabka miyaad doorateen مثلا كوانتين كده فدي دايرو تنتين كده فدي تنتين marka waxa laga wadaa odaga iyo ragga siyaasiyiinta la fadhiyo marka arintaas marka runtii asaga waxa laga yaabaa inuu islaa kitaabka dadka ku soo xiriir kitaabka jeclaysi kitaabka uu taagay kitaabkan dooranay Allahu akbar laakiin akhyaarta waaweyn arintaas wax bay gelisay sanadkii 1999 ayaa mar kale waxa magaalada Muqdisho laga abaabulay maxkamado beeleedyo ay leeyihiin beelaha hubaysan ganacsatada beelaha ayaa barataaray qarashka ku baxaya maleeshiyadii maxkamadaha lagu aasaasay hubkii gawaaridii iyo saanadii ay ku howlgalayeen waxaa si weyn loogu dadaalay in muuqaalka iyo dhaqanka maleeshiyada maxkamadahaasi uu wax badan uga duwanaado kii ay lahaayeen maleeshiyaadkii gaboodfallada looga bartay oo laga carari jiray marka la arko muuqooda si taas loo suurtageliyana waxaa inta badan maleeshiyada laga soo ururiyay masaajidda iskuulada iyo xarumaha kale ee waxbarashada wixii markaasi ka dambeeyayna waxa maxkamadihii ay bilaabeen in ay joogto ula dagaalamaan burcadii dhaca iyo dilalka magaalada ku haysay dabayaaqadii sanadkii 2002 iyo bilowgii 2003
waxa ay maxkamadihii ku guulaysteen in ay wax weyn ka qabtaan burcaddii magaalada looga maara la'aa. sheekh shariif sheekh axmed, guddoomiyihii maxkamadaha islaamiga islamarkaana noqday madaxweynihii ku-meel gaarka Soomaaliya, waxa uu sheegay in maxkamaduhu ay ku aasaasmeen wax ka qabashada xaalado aad u foolxumaa oo ay Muqdisho ku hayeen maleeshiyaadkii hubaysnaa ee daacadda u ahaa hogaamiye kooxeedyada, taas oo ay maxkamaduhu si weyn ugu guulaysteen in ay ciribtiraan wax kasta oo dhibaato ahaa oo bulshada lagu hayay. maxkamadahan ugu dambeeyay 2003 ayaa la aasaasay, waxaana la aasaasay markii dowladii carta ay dhamaad sii ahayd, shirkii Imbagatin oo socday ay markaas ku soo korortay magaalada Muqdisho dhibaatooyin hore aan ugu jirin oo dil iyo dhac iyo kufsi oo la jiro ikhtitaaf ama qafaalasho leh dad iyo gaadiidka. waxa dhacday in dadka Soomaalida ah iyo dadka ajaanibta isku siin loo qafaasho loona haysto madax furasho aad u xoog badan waxa dhacday dadkaas inta la haayo in la cadaabo. waxyaabaha dhacay waxaa kamid ah ICD in dushooda lagu shubo, waxaa kamid ah in bac la dhalaaliyo oo lagu dhabiyo si lacag badan ay u bixiyaan, iyo cadaab ama ciqaab kala duwan oo lagu sameeyay. isla markaas waxaan gadaal ka ogaanay in ay ku hoos jirtay dhoofin oo dadka la qafaalayo ay laba qaybood ahaayeen, qayb dalka gudihiisa lagu iibiyo iyo qayb dalka dibadiisa loo diro inay ahaayeen. marka qaybtii ugu horeysay ee maxaakiimtu ay ka howlgaleen waxay noqotay qaybtii dalka gudihiisa wax ku iibi jirtay. waxay ahaayeen dad dhalinyaro ah oo aad u abaabulan oo aad iskugu xidhan. intii aan maxkamadaha la aasaasinna rag badan oo howlahaas dabagal ku sameeyey waxay ogaadeen in maalgelin shisheeye ay ku jirtay halkaas. maxkamaduhu markii ay hana qaadeen waxaa mataqaanaa la waayey daahiradii ama dhibaatadii jirtay afduubkii gaadiidka iyo dadka intuba waa laga badbaaday. goobo waaweyn oo muhiim ah oo isgoysyada magaalada Muqdisho oo caanka ku ah jira markaas dilka iyo dhaca iyo isbaarooyinkana waa laga wareejiyey bifadlillaahi waxamdi. waxyaabaha ka xasuusi kartiin waxaa kamid ah isgoyska howlwadaag, waxaa kamid ah isgoyska soos, waxaa kamid ah isgoyska fagac oo kulligooda caan ku ahaayeen dhaca iyo dilka iyo dhibaatada. intaas markii la sameeyey magaalada Muqdisho nabadeedii wax badan iska bedelay. waxaa garab socday intaas dadaal maxaakiimtu ay wadeen iyo dhammaan dadka muslimiinta ah oo ku aadana dadka in la wacyi geliyo, dadka in qadiyadaha ay isku hayaan oo dhibaatada ay ka dhalan karto shariicada islaamka ah si cadaalad loogu xukumo ayaa garab socotay. awooddii maxaakiimtu way ballaaratay iyada oo taageeradii shacabkuna ay sii kordhaysay. meel kasta oo ay maleeshiyada maxkamaduhu qabsadaan ama ay tagaanna waxa ay la kulmayeen soo dhoweyn iyo taageerid aan xad lahayn. midowgii maxaakiimta islaamiga oo uu madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed guddoomiye u ahaa waxa ay astaan u noqdeen hirgelinta xukun ama dowlad islaami ah oo aan haykalkeeda iyo mabaadi'deeda la soo bandhigin. mowqifkii midowgii maxaakiimta islaamiga ee uu sheekh shariif sheekh axmed u faahfaahiyey dadweynaha waxa uu ahaa ku dhaqanka kitaabka qur'aanka iyo sunnaha nabigeenna sallallahu calayhi wasallam iyo ka fogaanshaha ku dayashada reer galbeedka sida dowladda Mareykanka. Allahu akbar, Allahu akbar. fadliga ilaahay ay raadinayaan, la yabtaguna fadla ruush wala fadla ghayra. maanta fi caalamka meel yar ay musiibo ka dhacdo maxaa la leeyahay caalamku waa soo gurbaday. العالم عالم الله وليس عالم الكفار. عالم كان إله اشتري يا جماعة، عالم كان عالم الله أبورتي، عالم كان قال ما لها حق ما حتى وما لها إنك كليان مؤمنين حق ولا إنك كليان عالم كلمة حق هي بدجات سيال واي. duufaantii maxkamadu waxay istaagtay 6 bilood kadib oo uu soo afjarmay guud ahaan maamulkii maxkamadaha oo dad badan ay u arkayeen in uu ahaa kii ugu wanaagsanaa dhinaca xasiloonida, kala dambeynta iyo cadaaladda oo deegaanada koonfurta lagu maamulo. in uu soo afjarmo maamulkii maxaakiimta waxaa sabab u ahaa in hogaamiyaashii maxaakiimtu ay ku dhawaaqeen dagaal kale oo xididada loogu siibayo dowladdii ku-meel gaarka ahayd oo fadhigeedu uu ahaa magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. ciidamo ka tirsanaa dowladdii ku-meel gaarka Soomaaliya oo ay si aan shacsanayn u taageerayeen ciidamo Itoobiyaan ah ayaa uu dagaal kula dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Baay maleeshiyadii maxaakiimta islaamiga oo doonayay in ay Baydhabo ka qabsadaan dowladda.
dagaalkaasi xooggiisu waxa uu ka dhacay deegaanada Daynuunay, Baanyaale, Kurkurow, Madiina, Gaaloge, Caashaa iyo Moodamoode oo dhammaantood dhaca inta u dhaxaysa magaalooyinka Baydhaba iyo Buur-Hakaba ee gobolka Baay. Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade iyo hogaamiyayaal kale oo maxaakiimta ka tirsanaa ayaa ku khudbeeyey in ay qorsheynayaan in salaada Jumcaha oo maalmo kooban ay ka harsanayd lagu dukan doono magaalada Addis Ababa ee caasimadda u ah waddanka Itoobiya. warkaasi wax badan loogama dambeyn markii ciidamo Itoobiyaan ah oo aad u hubaysan ay ka soo gudbeen xadkooda una soo tallaabeen dhanka Soomaaliya. difaacyadii magaalooyinka Bandiiradley, Caabudwaaq, Buulaburde, Kalabayrka, Matabaan iyo deegaano kale oo gobolada dhexe ka tirsan ayay taangiyadii Itoobiyaanku xoog ku soo jiireen kadib markii halkaasi ay ka dhaceen dagaallo labada dhinac ay aad ugu rafaadeen. mas-uuliyiintii maxaakiimta intooda badan dalka ayay ka carareen, inta kalena dholalka miyiga ayay ku dhuumaalaysanayeen. rag ay hogaaminayaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Sheekh Xasan Daahir Aways ayaa magaalada Asmara ee waddanka Eritrea fariistay, iyadoo Sheekh Shariif iyo raggiisii laga soo qaaday xadka Soomaaliya iyo Kenya oo ay markii hore ku dhuumaalaysanayeen. ugu dambeyntiina dowladdii ku-meel gaarka oo ay galbinayaan ciidamo Itoobiyaan ah ayaa Muqdisho yimid, villa Soomaaliyana fariistay. laakiin dagaalkii sidaasi kuma joogsan. hogaamiyaashii maxaakiimtu waxa ay dib u aasaaseen kooxo loogu magac daray kooxaha wax iska caabinta oo Muqdisho ka bilaabay dagaal u badan nooca ku dhufo ka dhaqaaqa ah, qaraxyo iyo dilal qorshaysan. kooxihii markii hore dagaalka ku midaysnaa waxa ay ku kala qaybsameen markii Sheekh Shariif iyo raggiisii ay ogolaadeen in ay ka qayb galaan shir laysku soo horfariisiyey isbahaysigii Asmara iyo mas-uuliyiintii dowladdii ku-meel gaarka ahayd. waxaa halkaasi ka soo ifbaxday diidmada xarakada Al-Shabaab, ururkii Raaskambooni iyo kii Xisbul Islaam oo mar kale ku celiyey in dagaalka ay sii wadi doonaan oo aysan joojin doonin. wadahadalkii dowladda iyo isbahaysiga Asmara oo ka koobnaa xubno dowladda ku-meel gaarka ka tirsanaa oo mucaaradayay sida ay wax u socdeen iyo mas-uuliyiintii maxaakiimta waxaa ka soo baxay in shirweyne la qabto oo doorasho madaxweyne ah la qabanqaabiyo kadib markii uu iscasilay madaxweynihii dowladdii ku-meel gaarka ee xilligaas Cabdullaahi Yuusuf Axmed. doorashadii la qabtay waxaa ku soo baxay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo noqday madaxweynihii dowladdii ku-meel gaarka ee talada hayay intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2012. Sheekh Shariif waxa uu dalka ku soo laabtay iyada oo mucaaradad xoogan looga hayo Muqdisho. waxay dagaal isku wajaheen isla raggii iyo maleeshiyadii markii hore ay maxaakiimta ka wada tirsanaayeen. kooxihii kale ee dowladda ka soo horjeeday sida Raaskambooni iyo Xisbul Islaam muddo markii ay dagaalka sii wadeen kadib waxa ay ku kala biireen xarakada Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya. waxaana masraxa dagaalka isugu soo haray dowladda federaalka ah iyo Al-Shabaab. 18 February waxa ay dhashay miro iyo natiijo ah intii aanu ka soo sheekaynay iyo in ka badan iyo inta aanu arkayna maanta iyo in laga yaabo in mustaqbalkaba ay saameyn ku leedahay. balse rajada ayaa ah in maalin uu iman doono isbeddel ka wanaagsan xaaladda maanta lagu sugan yahay. intaas ayaynu kusoo gunaanadeena warbixintan tan iyo muuqaalka xiga. waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. amaana Allah.